بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 37 بدء إسلام الأنصار. أحبتي في الله، وحن كسو جرنا كتاب كان خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين أيان كسو جرني، waxaanu soo gaarnay darsiga 21 ee kitaabkeena. ciwaankeena wuxuu yahay ansaar oo islaamkeedii uu bilowday fi sanati 11 sanadkii 11 ee bicithada. qadima waxaa soo galay makata, magaalada maka waxaa soo galay 6 nafarin, 6 ruux ayaa soo gashay oo min carabi yathriba, magaalada madiina carabtii deganeed ah. 6daasi isku qabiil bay ahaayeenoo khasraj baa la dhihi jiray. ansaarta deganeed magaaladan la yidhaahdo yathriba oo madiina hadda nabigu uu bedelay calayhi salaatu wasalaam, waageeda horena yathrib la dhihi jiray. yaa ahla yathriba laa muqaama lakum farjicuu. magaaladaas yathrib, magaalada dadka deganaa ee ansaarta ahaa, waxay ahaayeen 2 qabiil, khasraj iyo aws baa la kala dhihi jiray. 6 ruux oo marka waxaa yimid carabtii madiina deganaa ee khasraj qabiilka la yidhahdo ah. maxay maka u imaadeen lilxaji, inay soo xajiyaan. dadkaas iyagoo gaalo ah bay haddana xajin jireen. fadacaahum annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nabiga eebe ayaa ka faa-ideysto u yeeray ilal islaami, islaamkii diinta ugu yeeray. wa ilaa mucaawanatihi, inay u hiiliyaan oy caawiyaan ayuu ugu yeeray fii tabliiqi risaalati rabbihi, rabbigiisa risaaladiisa gaarsiinteedana ay ka caawiyaan ayuu ugu yeeray. fa aamanuu way rumeeyeen bihi, nabigay rumeeyeenoo wasadaquuhu way rumeeyeen, waa isku macno. wa qaaluu waxay dhaheen fii maa baynahum, iyagoo dhexdooda isla hadlaya waxay isku dhaheen, wallaahi ilaahay baan ku dhaarannay, innahu ninka kani annabiyu waa nabigii, alladii nabigaasoo tacidunaa ay noogu goodinaysay ama ay noogu hanjabaysay, bihi nabigaasi alyahuudu, yahuud ay noogu hanjabaysay. ee falaa yasbiquuna ilayhi, yaysan nooga hormarin, aanu rumayno. nimankaani carbeed waxay la deganaayeen, yahuud baa madiine la deganeed. yahuudda marka waxay dhihi jirtay, nabi baa dhiman oo kutubteena lagu sheegay, nabigaasaa soo bixi doono, waan rumayn doonaa, kadibna isagoo na hogaaminayaan carabay diirka idinka dhigaynaayo, dekan idinka dhigaynaayo, waan idinka guulaysanaynaa bay dhihi jireen. nimankan marka fursaddii bay ka faa'iidaysteen, waxay dhaheen, warnimayow nabigii ay gaaladaasi yahuudeed noogu hanjabi jireen, waa nabiga kana, yaysan nooga hormarin. kadib way rumeeyeen. walamaa rajacuu, markay laabteen ilaa bilaadihim, waddankoodii oo madiine iyo yathriba ay u laabteen, dakaruu way u warameen liqowmihim, tolkoodii oo ansaara bay u sheegeen dikra rasuuli, nabiga sheekadiisii bay u sheegeen oo nabiga oga warameen. wa dacowhum, waxayna ugu yeereen ehelkooda ilal islaami, inay islaamaan. fantashara waxaa fiday dikruhu sala allahu calayhi wasalam, nabiga sheegitaankiisa iyo warkiisibaa fiday filmuduni, magaalooyinka ayuu ku fiday. wa haadaa kan huwa isagu bad-u islaami carabi yathriba, magaalada yathrib la yidhaahdo ama madiine la yidhaahdo, carabtii deganeed islaamidoodii bilowgeedii weeye. qaabkaasay ku bilaabatay inay daruurtii islaamnimada ka horto magaalada madiino. 6dan ruux baana sabab u ahaa. as'ilatun, su-aal. man qadima, yaa soo galay makata mako fi sanati 11 sanadkii 11 ee min annubuwati, nabinimada. 6 ruux oo ree yathriba ah soo galay. maadaa qaala lahum rasuulu sala allahu calayhi wasalam, nabiga muxuu ku yidhi islaamku ugu yeeray iyo inay u gargaaraan, ay u hiiliyaan dacwada gaarsiinteeda. hal aamanuu bihi, ma rumeeyeen? nacam, way rumeeyeen. maadaa facaluu, maxay sameeyeen bacda rujuucihim ilaa bilaadihim, magaalooyinkoodii markay u laabteen maxay sameeyeen? dadkii bay diinta gaarsiiyeen, oo qabiilkii iyo ehelkii ay ka dhasheen bay diinta sii gaarsiiyeen. alkhulaasa, warkii oo lasoo gebagabeeyey. wa fii haadihi sanati, sanadkan oo kana, qadima makata, magaalada maka waxaa soo galay lilxaji, xajna u soo galay
6 nafarin 6 ruux oo min carabi almadiinati magaalada madiine carabtii deganeed ah. fa aslamuu way islaameen wanasharuu waxay fidiyeen dikra rasuuli sala allahu calayhi wasalam nabiga sheegidiisa iyo magaciisa filmadiinati magaalada madiino. sidaasuuna islaamka ku bilowday. marka waxaad u jeedaa aayaddii qur-aankeedoo ilaahay uu lahaa ina allaha yahdi man yashaau bikayri xisaab. ilaahay wuxuu hanuuniyaa ciduu doono. innaka laa tahdii man axbabta. nebi maxamedow ciddaad adigu jeceshahay ma hanuunin kartid, laakiin ilaahay baa ciduu doono hanuuniyo. walaakina allaha yahdii man yashaa. dadkii nabiga uu ka dhashay ee ehelkiisa ahaa ee qaraabadiisa ahaa baa diintii lagu kari waayey. oonu soo marnay magaaladii xitaa nabiga inuu damiin ku joogo ayuu noqday. kuwa intaasoo kilomitir 500 kilomitir ka yimid ee yathrib iyo madiine ka yimid oo musaafiriin ana wa kuwaa diinta iyo islaamka qaadan hayo. yacni cajiib, waa awoodda allah subxaanahu wa tacaala. saxaabo yaman joogtay baanu soo marnay, gaalo yaman joogtay oo intay soo baxeen nabigu yimid oo iska islaamay. kuwii nabigu uu ka dhashayna waa la kari laayahay. marka islaamnimadu iyo hidaayadu ilaahay subxaanahu wa tacaala bay gacantiisa ku jirtaa. cidduu kheyr la doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala si sahlan buu ku siin. cidduusan kheyr la dooninna ilaahay waa uu qadinaya subxaanahu wa tacaala. الدرس 38 درسiga 38 بيعة العقبة الأولى ballantii buurta koowaad iyo jiirta koowaad ka dhacday. alcaqaba waa jiir, 2 buurood meesha iska qabtaan ee sheefta ama godka baa caqaba la yidhaahdaa. al-uulana waa tii ugu horreysay, tu kala soo socoto. baycana waxaa la yidhahdaa wacad iyo ballan in isla galo. fi sanati 12 sanadkii 12aad ee nebinimada qadima waxaa soo galay 12 rajulan 12 nin oo min carabi almadiinati magaalada madiine carabtii deganeed ah. 12kaasi 10 waxay ahaayeen aws, 2na waxay ahaayeen khasraj. sanadkii hore meeqa imaatay 6daas yay ahaayeen khasraj bay ahaayeen. sanadkii ku xigay 12 nin oo carab madiinadii yacni carabtii madiina deganeed baa imaaday. 10 ka mid a aws bay ahaayeen. yaa soo islaamiyey 6dii nin ee khasraj baa soo islaamisay. ogow, khasrajkii waxa soo islaamiyeyna 2 ruux baa ka socod. cajiib. fajtamacuu way soo kulmeen birasuuli sala allahu calayhi wasalam nabiga ee bay la kulmeen cinda alcaqabati aluulaa jiirtii koowaad agteedii bay kula kulmeen. wabaayacuu wayna la mubaayacoodeen cala alislaami islaamka inay galaan oo islaamka ay kor yeelaan yay nabiga kula heshiyeen bishuruudin, weliba shuruud bay nabiga la galeen. mubaayacay la galeen. beycadaani ay la galeen waxaa la yidhaahdaa beycatu nisaa baa la yidhaahdaa. taariikhdu sidaasay u taqaanaayo beycatu nisaa baa loo garanayaa ballantii dumarka, lianna dadka nabiga la mubaayacoonaya rag iyo dumarba way lahaayeen. kow waxay kula heshiyeen calaa an laa yushrikuu inaynan la wadaajinin billaahi eebbaweyne shay-an waxba, inaynan ilaahay waxba la wadaajinin keligiisa ay caabudaan. walaa yasriquu inaynan waxba xadin, ilaan gaalay ahaayeen waxbay xadi jireen, inaynan waxba xadin. walaa yaznuu inaynan zinaysanin oy zinada ka fogaadaan. walaa yaqtuluu inaynan dilin awlaadahum ilmahooda aynu soo marnoy laan jireen. walaa ya-tuu inaynan la imaanin bibuhtaanin nabyo iyo been abuur yaftaruunahu ay abuuran hayaan bayna aydiihim hortooda ama bayna aydiihim gacmahoodii hortooda iyo wa arjulihim lugahoodii hortooda ay ka abuuranayaan. waa un been abuuroo gacan ku sameys ah, inay la yimaadaanna waa laga reebay. walaa yacsuu inaynan caasinin rasuulka fii macruufin wanaag uu faray inaynan ku caasininna heshiiskay ka mid ahayd. fa in awfuu hadday oofiyaan ballantaasi falahum waxay leeyihiin aljannatu janno. wa in asaabuu hadday ku dhacaan oy asiibaan min daalika shuruudaasi shay-an shay ka mid ah fa amruhum taladoodii amarkooda ilallaahi ilaahay baa loo bandhigayaa.
in shaa eebba hadduu doono ghafara wuu u dembi dhaafi wa in shaa hadduu doonana cadaba eebba wuu cadaabi. shuruuddaasay heshiis kula galeen nabiga sala allahu caleyhi wasalam. meeshan wa in asaabuu min daalika shay-an fa amruhum ila allaahi. hadday khalad ka dhaco shuruuddaas aan soo sheegnay mid ka mid hadday ku khaldamaan amarkooda ilaahay baa loo bandhigi marka la leeyahay shardiga koowaad marka laga reebo wey, oo shirkigaa laga reebaya calaa an laa yushrikuu billaahi shay-an. kaas ciddii ku dhacday iyadu amarkeeda ilaahay baa loo bandhigi, la dhihi maayo iyadu ilaahay u dembi dhaafi maayo. warkeeda qur-aanka caddeeyey. iyadu ciddii mushriknimo iyo shirki ku dhimato iyadu towba ma lahan. ina allaha laa yakfiru an yushraka bih. shirkigaas waad ka soo reebaysaa. laakiin qofkii wax hado ama zinaysto ama wax dilo ama shuruudahan kale amarkiis ilaahay baa loo bandhigi. hadduu doonana ilaahay wuu u dembi dhaafi, hadduu doonana wuu cadaabi. oo towbadii inuu ka aqbalaa suuragalo intuu towbo keeno. waxaa suuragala ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iska cafiyo. waxaa suuragala ilaahay inuu cadaabo qadarkii dembigiisa kadibna uu janno ku dambeeyo. walamaa rajacuu markay usoo laabteen ilaa bilaadihim wadankoodii madiine markay u laabteen 12 ruux arsala wuu raaciyey macahum la jirkooda alrasuulu nabiga sala allahu calayhi wasalam man qof ayuu raaciyey yucallimuhum bara alislaama islaamkii baro. islaamku waa batay marka 6 hore iyo 12 hadda marka laisku daraay waxay noqonaysaa 18 ruux. islaamku waa batay marka macallin buu nabiga raaciyey. macallinkaas inuu islaamka baro darteedii buu u raaciyey. wayufaqihuhum inuu fahansiiyo fi diini diinka u fahansiiyo. macallinkaasi yuu ahaa hoos buu kugu qorayaa muscab ibnu cumayr wa kaana yusamaa almuqri. qaari baa lagu magacaabi jiray. muscab ibnu cumayr wuxuu ahaa awalu safiirin fi lislaam. safiirkii ugu horreeyo nabigu uu maka ka diro madiine u diray buu ahaa. ninkaasuu raaciyey inuu diinta baro. fantashara alislaamu islaamkii baa fiday bisababihim dadkaas soo islaamay sababkoodii buu ku fiday xataa lam yabqa ilaa uusan baaqi noqonin beytun guri oo min buyuuti almadiinati magaalada madiine guryaheedii ka mid ilaa wa fiihi gurigaas waxaa ku dhex sugnaa dikru lislaami islaamka sheegidiisa iyo nabiga magaciisa. diintii caan bay noqotay, guryihii oo dhan bay gashay. guri walba mid ii labaa ka islaamay. nabiga magaciisa baa la sheegi, islaamkii baa la maqlay, diintii baa toos u gashay. as'ilatun su-aal. man qadimayaa soo galay fi sanati 12 sanadkii 12aad yaa nabigu usoo galo u yimid. 12 nin oo isku qabiil intoodii badan ayaa usoo galay. 10 ree aws iyo 2 khasraja. hal ijtamacuu birasuuli nabiga ma la kulmeen? si tuuganimo ay bay kula kulmeen. lianna lama ogolo nabiga in loo tago. nabigu calayhi salaatu wasalaam gaaladii baa kormeerayso ka warqabto. wax toos ugu tegi kara malaha, si tuuganimo ay ugu tageen. calaa ayi shay-in baayacuuhu maxay nabiga kula ballameen? maxay wacad kula mareen? shuruudan soo sheegnay. islaamka in la kor yeelo, shirkiga in la iska ilaaliyo, inaan waxba la xadin la sinaysanin. shuruudaas. maadaa facala macahum arasuulu sala allahu caleyhi wasalam. nabiga macoodii muxuu sameeyey xiinamaa rajacuu markay laabanayeen? nabiga muscab ibnu cumeer ayuu raaciyey. alkhulaasa warkii oo lasoo aruuriyey fi sanati 12 sanadkii 12aad ee bicthada qadima waxaa soo galay 12 rajulan 12 nin baa timid min almadiinati magaalada madiineyna ka imaadeen. fabaayacahum arasuulu nabiga ayaa mubaayaco la galay cinda alcaqabati jiirtii ama karinkii agtii ayuu mubaayaco kula galay. farajacuu way laabteen oo madiinay ku laabteen. wanasharuu waxay fidiyeen addiina diinkii islaamka ayay fidiyeen filmadiinati magaalada madiinay ku fidiyeen. diintii iyo dacwadii iyo ballantii nabiga sal ll ly slam uu la galay ayay halkaa ku fidiyeen. dacwadii bay gaarsiiyeen. magaaladiiba waxay noqotay magaalo isu diyaarisay nabiga soo dhoweyntiisa calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay waxaa soo dhow nabigoo maka ka cararo oo madiine u cararo. ilaahay halkaasuu marka oga sii diyaarinayaa meeshii nabigu uu ku degi lahaa iyo dadkii soo dhoweyn lahaa iyo dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam qalbi furan kusoo dhoweyn lahaa ayaa xaggaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu oga diyaarinhayaa.
marka waxaa socdo amar eebaa socdo reer qureysheed hadday nabiga ku adkeeyeen qolo nabiga qalbi furan ku soo dhoweynayso ayuu halkaa ilaahay oga diyaarinaya subxaanahu wa tacaala. diintan marka qof hadduu liido uu koryeeli waayo uu qaadan waayo cid qaadato oo koryeesha lawaan mahayo. waa sunnatullaahi fii khalqi. qolo hadday un diinta si yeelaanoo xoogaa ay un liidaan qolo diinta koryeesha lawayni mahayo. allah waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i ilxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu inaga dhigo kuwa diintiisa u taagan barashadeeda iyo dadbarideeda iyo koryeelideeda iyo ku dhaqankeedaba ayaan ilaahay weydiisanaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga aqbalana waanu weydiisanaynaa. jasaakum allahu khayra. nin walbo inaga naga mid ah qeybta kaaga aadan diinta eebbe koryeelideeda ka qeyb qaado. maanta saxaabadiina ma joogaan, nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaamna ma joogo. diintii anigii adigay noo taalla inaan diintaasu dadka gaadhsinno, inaanu anagu baranno oon ku dhaqanno, walaaladeenna muslimiintana aan gaadhsinno annagay noo taallaa. nin walbay u taallaa, rag iyo dumarba. marka waa inaad nin walbo kaalintaada ka qaadato. jasaakum allahu khayra. duruusta la akhrinayo taariikh hore oo dhacday oo sheeko hore ma ahane waa inaad adiga isku dabaqdaa. maantay kuu baahanto adiga lagu soo gaaraye dhinacaada iyo kaalintaada ka istaag. wajazaakum allahu khayra. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.